dadkan hadda wadwadahay war calanka deegaankeena anaga ka talin haddaan idin sheeganaa deegaankayaga anaga ka talina haddaan rabna calankaasi qofkii lagu arko dil togasho ah lagu xukumo deegaankeena anaga iskale ma fahanteen marka wuxuu hadda calanka Puntland baa igala qiimo badan xaqiiqatan ka Soomaaliga ahi iyo kan Puntland haddii maanta aan ismeel dhigo kan Soomaaliya gurigayga maba yaalaba laymana tuso laakiin kayga Puntland waa kan dawladnimada waa kan aniga sharafteeda ilaasha waa kan horumarkayga ilaasha kaasaana anuu ku faanaya kan Soomaaliyeedii hadda waa kan maanta la igu dhibaateenayo 24 sano aan Soomaalinimo ka shaqeynayay waxbana kuma helo calanka maradaasi wax hadda isoo kordhinaysa mar calanku maradu haddaysa sharaf lahayn sharaf looma yeelin calankii wuxuu noqday calankii adduunka meel lagu tuugsado Soomaaliya waa kan calankeedii wax ku riday waa ogtiin xaqiiqdan isku sheeganaa marka wuxuu soo kordhinaya maana calan sharaf laan haystaa kaygaasa ii taagan kaygaasaan ixtiraamaya kaygaasaan maxay ahayd idinku badin maaye kaygaasaan maxay ahayd sumcad iyo sharaf aan agtiisa aan maxay ahayd igu leh laakiin kan kale dadkan wadwada war haddaan rabno waaba gubaynaaba dadkan anaga fogeynaya war haddaan rabno waaba la laalaabay mid cusub baa la soo dhijiyay haddii la xitaa waa la gubayaa waxaad soo kordhinaya I don't think that ma garanayo marka Suudan waa ku soo Ramadaan Mubarak Eid Mubarak intaasaan leeyahay asxaabtu waa salaamaya nimanka